wariyaal Soomaaliyeed oo ka yimid magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta deeq lacageed waxa ay guddoonsiiyeen caruurtii ay ka dhimatay Allah u naxariistay wariye Hindiya Xaaji Maxamed iyo sidoo kale taxaaskii uu ka geeriyooday Liibaan Cali Nuur. wariyaashan ayaa wakiil u ah saaxiibadooda kale ee Kenya ku sugan ee lacag iska soo aruuriyeen in ay maanta lacagtaas soo gaarsiiyeen caruurtan. wariyaashan oo kale ah Cilmi Maxamed Waare Ibrahim Geedo Cawaale ayaa lacagtaas markii la guddoonsiiyay caruurta warbaahinta la hadlay. sharafayno ahayd maanta in aan halkan nimaadno magaalada Muqdisho waxaan ahayn guddi wariyaal oo isku xil saaray dabcan sidii loo caawin lahaa ama inta tabarteena aan ka gaarsiin karno caruurta agoonta iyo rajada noqday. waxaana ahayn wariyaal inta badan naga laftirkeena qaxootiga ah magaalada Nairobi oo dareemi karnaa in lacagtu aysan ahayn lacag ku filan ama baahidooda dabooli karto, laakiin ugu yaraan waxay ahayd dareenkeena in aan muujino. waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan wariyaashii nagala qayb galay guddi loo xilsaaray Cilmi Waare agaasimo noo ahaa ama guddoomiye noo ahaa Nimco Xasan Cabdi iyo sidoo kale Maxamed Ismail Xuseen Niyo guddoomiyaha saxafiyiinta halkaas ku nool iyo Eglan Saalax oo mahadcelinaynaa safaaradda Soomaaliya Jamaal iyo sidoo kale qonsulka waa mahadcelinaynaa sidoo kale Maxamed Cali Nuur Americo Fuad Xaaji Cabduuli iyo oo kamid ah wariyaasha isagana London ku noolaa Nairobi nagula noolaa oo kaalin weyn ka qaatay dardargelinta barnaamijkan iyo sidoo kale agaasimaha Universal qaybtan bariga Afrika Cabdullaahi Xirso isna kaalin weyn naga gaarsiiyay dhammaan wariyaasha Nairobi ku nool oo mahadcelinaynaa fariintooda waa ay soo gaartay. maanta waxaan soo booqanay guriga ay ku nool yihiin caruurtii ay ka tagtay Hindiya Xaaji Maxamed iyo Allah u naxariistay Liibaan Cali Nuur. waxaan ahayn team wariyaal ah oo ka yimid magaalada Nairobi. waxaan soo guddoonsiinay ama aan soo gaarsiinay lacag yar oo aan guddoonsiinay $100 oo aan guddoonsiinay ciyaalkii ay ka tagtay Allah u naxariistay Hindiyo iyo sidoo kale $1 oo aan guddoonsiinay ayadana mono oo ah ayadana ciyaal u dhashay Liibaan Allah u naxariisto. lacagahaasi waxay ahaayeen lacag ay garteen wariyaasha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi iyo sidoo kale safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Nairobi. waxaa sidoo kale gacan ka geystay safiirkii hore Maxamed Cali Nuur Americo. waa kan mid kamid ah eheladii maanta lacagtaas la soo gaarsiiyay oo ka hadlay dareenkooda. anagoo ah ehelkii iyo qaraabadii wariye marxuumad Hindiya Xaaji Maxamed waxaan ka mahadcelinaynaa suxufiyiintii caruurtaasi deeqda lacagta soo gaarsiiyeen anagoo kala reebayna dhammaan suxufiyiinta iyo inta ka qayb qaadatay deeqdan aad iyo aad ayaan ku mahadcelinayaa. Hani Axmed, Jubaland TV, Muqdisho.